بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. إن شاء الله إذنكم دheerayn doono waxaan jeclahay kalimaad kooban in aan ka idhaahdo xadiidka كتب أهل العلم وحائن عنوان ودقان قصة العظماء الثلاثة الذين أخرجهم الجوع. قصة سدح دين ووينا أي قاتل صوصارتي. حديثك إمام الألباني أي وحوكورين يا في صحيح سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحوي النبي صلى الله عليه وسلم أي صباحي مالمها كم إذا ساعة أن صبح تشرين مركي أسوق يمي أي النبي صلى الله عليه وسلم وحول كل مي أبو بكر دبدنا وحوري ما أخرجك يا أبو بكر ومحاك صوص عري أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم وكحشوضي ووحي يا رسول الله إن أنكو أركو وأنكو السلام أيان صباحي وقت يركدب أيا وحا لسو كل مي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه دبدنا النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال أيويدي محاكو صوصاري عمر وحوقو جوابي أخرجني الجوع يا رسول الله gaajo ayaa iga soo saartay gurigeygii rasuulka Ilaahay marka ayuu Abu Bakar wixii uu qarsanayay soo saaro yiri ya rasuulullaahi anigana waxa soo saaray Umar ayaa soo saaray waxay nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo labadiisii wasiir isku waraysteen inay aqaladoodii uga soo baxeen baahi haysay iyo gaajo ay u adkeysan waayeen dabadeedna waxa ay yiraahdeen إن ماريا أين أتجنن أنصار كميدا وحاي تجن جري لها صحابي لورنشري أبو الهيثم الأنصاري جري وحاي تجن السجوا كمقن قبل سي أي سلامين أو ويدين ما أبو الهيثم وحاي كتير خرج يستعذب لنا الماء وبحيسي وبيمعان وكانوا رسولك صلى الله عليه وسلم إيه أبو بكر إيه عمر نوحي تري سود وهذا هو سود ويسي أبو الهيثم أيامي وحويري دوني ذا مسار نقف ما أنت إجمرتي وناكسن سود وهذا رسولك إلهي إيه لبدي سي صاحبه مركي سود ويي أيا وحاو كاني لان تمرأ إيه بيقبو أيو كاني رسولك صلى الله عليه وسلم إيه أبو بكر إيه عمر dabadeedna mindidiisii ayuu qaatay si uu neef ugu soo gowraco nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri iyaaka wal halub Abu al-Haytham oo iska ilaali neefka irmaan ee caruurta marka loo lisayo markuu nabiga sallallahu alayhi wasallam marti sooray oo uu hagaajiyay oo ay saxaabadii iyo Abu Bakar iyo Umar iyo nabigii ay dhergeen ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri waxa aynu haysanaa har wanaagsan iyo cunto aynu ka dharagnay iyo biyo qabow oo haraadkii inaga biiyay wallahi la tusaluna yawma idin 'anil na'im ilaahay baan ku dhaartay nimcada aad maanta haysataan maalinta qiyaamo waa idin weydiin doona nimcada ay haystaan waa maxay waa maalin ay dhargeen أي إلهي سبحانه وتعالى ويدين دونا مال انت قيامه إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحكيري ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم النبي صلى الله عليه وسلم علمها كمدا أي آية آخرية دبدنا وحاو يري يقول ابن آدم مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت
أو تصدقت فأمضيت. النبي صلى الله عليه وسلم وحيري بن آدم كوحا أوليهي هنتي ذيدي وهنتي ذي سميو كليهي وحو عنو أو لاستو حمامك وجيو إيه وحو حدو ومرك وباليو كدوغوبا إيه وحو صدقيستو أو إلهي أكتي أهر مرصدي رأس مالك ربط أنا ووحى إلهي سبحانه وتعالى هردكتي. حديث كاولا ليال سدح فايدو أينو كقاضنينا. أولا وحينو كقاضنينا النبي صلى الله عليه وسلم إساقو أو تشوغا مقالة دي مدينة أو مسلمين تا أو دنبوسي ugu sareeyay amba jagadii ugu sareeyay la qabto taagan madaxweyne kasta ka qiimo badan ayaa waxa aqalkiisii ka soo saaray gaajo umalayn maayo in niyadiina ay ku soo dhacayso inuu nabigu sallallahu alayhi wasallam iyo dawladiisuba wada sabool ahaayeen maya arinta walaalayaal waxaynu ka qaadanaynaa adduunkan aynu ururinayno oo ilaahay subhanahu wa ta'ala bini aadamka uu ku sheegay alhaakum at-takathur hatta zurtum al-maqabir in dadka ay mashquulisay sidii ay u kala badsan lahaayeen hantida ilaa xabaalaha loo qaado adduunka caynkaas nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo afdalu as-sahaba Abu Bakr wa Umar wax qiimo agtooda ka muulahay taasi waxay ku tusaysaa ku dayashada dhabta ah cidda inaga mudan ee aynu ku dayanayno xaalkeedu sidaas u ahaa nabiga sallallahu alayhi wasallam isagoo bini aadamka tilmaamaya ayuu wuxuu yiri law kana libni aadama wadiyan min dhahab labtagha lahumā thalitha hadii bini aadamku uu lahaan lahaa laba wabi amba laba tog oo dahaba mid saddexaad buu u baadi dooni lahaa ha ku tashan markaa hanti aad heshay oo aad is oran kartid limit bay ku tahay oo halka marka aad gaadhid baad adduunka shaqadiisa iyo iska dhaafi doontaa ma jirto waxaynu ka qaadanaynaa marka nabiga sallallahu alayhi wasallam xaaladii uu ku sugnaa iyo adduunku qiimaha uu agtiisa ka lahaa arinta caynkaas uu nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabadii uu ku barbaariyay Abdurrahman ibn Auf wuxuu kamid ahaa saxaabadii 10 ahaa ee jannada loogu bishaareeyay iyaga oo dunida jooga maalmaha kamida ayaa la soo hordhigay weel cuntada noocyadii kala duwan ay ku jiraan dabadeedna sida intuu u eegay ayuu ilmeeyay ragii la fadhiyay baa yiri maxaad la ooyeysaa cuntada madcunti wuxuu yiri walaalkay Mus'ab ibn Umayr cuntada macaan iyo noocyada kala duwan isagoo aan waxba ka cunin buu geeriyooday Mus'ab ibn Umayr oo taariikhdiisa aad garanaysaan magaalada Makka waxa dhashay islaan maalqabeena waxay tilmaamaan saxaabadu cadarka uu Mus'ab marsado wadada uu soo maray saacada kadib baa laga urin jiray oo la garan jiray inuu Mus'ab maray saxaabigii caynka ahaa markii uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa tadxiyo u sameeyay naftii huranimo uu sameeyay maalintii Uhud ee uu shahiiday wax lagu kafmaa la waayay waxa loo helay qayd yar oo hadii cagaha laga saaro waji uu muuqanayay madaxu hadii madaxa laga saarana qaarka hoose ay muuqanaysay saxaabigaas uu xasuustay markaas uu yiri walaalkay Mus'ab waxa uu dunida ka tagay isaga oo aan ka dhargin ama aan dhadhamin cuntadan waxaan ka baqayaa buu oran jiray in maalinta qiyaamana la yiraahdo adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha macaankiini iyo wanaagii waxaad ku soo laasateen dunidaad ku soo laasateen in la yiraahdo ka baqayaa buu xadiidka xadiid u eg ayaa laga wariyay Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu inuu u yimi Jabir ibn Abdullah oo gacanta ku haysta waslad hiliba dabadeedna uu ku yiri Jabir waa maxay waxaad cunaysaa markaas uu yiri hilib baan u baahday ishtahaytu lahman hilib baan u baahday oo cunaya Umar isaga oo la yaaban buu yiri akullama ishtahayta lahman akalta oo markasta oo aad hilib u baahatid miyaad cuntaa waxaan ka baqayaa inaad noqotid buu yiri qoladii la yiri adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya idan saxaabada iyo salafku adduunkan aynu dhinac kasta iska dhignay ee maskaxdeeni buuxiyay qiimaha caynka abu agtooda kalaha wax weyn umay arkayn lama diidana qofku inuu shaqaysto inuu hanti kasbadana lama diidana
laakiin hantidu in ay caqliga ka degto oo haba yaraatee aanu qofkaasi xasuusan ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu la kulmi doono arrintaasaa musiiba. hantidu inay gacanta dhaafto ma aha, waxa loo adeegsanayaana ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii raali gelinayay inay noqdaan baa la doonayaa. wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu raali gelinayay in hantidan loo adeegsado ayaa la doonayaa. waayo qof waliba maalinta qiyaame 4 su'aaloodoo la weydiinaya waxaa ka mid ah wa can maalihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa. hantidiisii xagee buu ka kasbaday, am min xalaalin am min xaraam, xagee buu se ku bixiyey. faa'iidada labaad ee aynu xadiidkan ka qaadanayno walaalayaal waxa weeye sida saxaabadu ay u gacan furnaayeen oo martisoorka iyo marti hagaajinta ay ugu wanaagsanaayeen. saxaabigana markii uu arkay nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo labadaa saxaabi aad buu ugu farxay. wuxuu yidhi wax iga sharaf badan marti cid ay u timaado maanta ma jirto. sidaa ayay saxaabadu ahaayeen. waad garanaysaan xadiidkii nabiga sallallahu alayhi wasallam in uu qoys muslima oo ansaara uu habeenada kamida u yimi isagoo marti ah. dabadeedna qoyskaasi ay isku noqdeen ninkii iyo gabadhii oo ay yiraahdeen maxaynu ku marti soornaa. gabadhii ay ugu jawaabtay wallaahi cuntada cashada caruurta ay aanu karinayo mooyee wax kale ma hayo. dabadeedna ninkii uu tala ku soo jeediyay uu yiri caruurta waxaad samaysaa dhariga dabka u saar, ku mashquuli inta ay seexanayaan. marka ay seexdaan dharigii aynu hor dhigaynaa, inaguna way ag fadhiisanaynaa. waxaad iska dhigi doontaa qof faynuuskii markaa hagaajinaya, dabadeedna bakti weelka gacanteenu gelinaynaa, waxba kama cunayno laakiin si uu cuno. martiqaadka caynkaas ayay sameynayeen saxaabadu. idan xadiidka ayaynu ka qaadanaynaa. arrinta saddexaad aynu xadiidka ka qaadanayna waxa weeye nicamka faraha badan, nimcooyinka kala duwan ee ilaahay subxaanahu wa tacaala ina siiyey in ay yihiin nimcooyin rabbi subxaanahu wa tacaala ina weydiin doono maalinta qiyaame. wax kastoo aad haysatid nicamka maxaa ugu yar? caafimaadka aad haysatid, bal waa akbaru nicma oo aad haysatid. nimcooyinka kala duwan ee qofku haysto markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ku mahadiyo oo uu ku shukriyo. waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga ayaa ballan qaaday haddii nimcadiisa lagu mahadiyo oo lagu shukriyo inuu kordhin doono. la in shakartum la aziidannakum wala in kafartum inna cadaabii la shadiid. walaalayaal markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inaga dhigo kuwo nimcooyinka ay haystaan garta oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xusa. wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.